ninkan asagoo taleefon ku hadlaya ayuu gurigiisa soo galay oo la hadlaya madaxa shirkadda wuxuuna ku leeyahay xaaskeeda taleefonkeeda waa inuu kasoo shubtaa 1 milyan lacag. gabadhan halkan ayay fadhisaa farxiisa markaas ayuu ku leeyahay xaaskeyga taleefonkaada waa inay ka fiirisaa inay kuu soo dhacdo lacagta. gabadha ayaa ku dhiisa waaya isla markii waxay bilaabaysaa inay fiiriso taleefonkeeda waxayna ogaanaysaa lacagta inay usoo dhacdo. waxay ku leedahay waa iisoo dhacday. wuxuu ku leeyahay lacagtan waxaad kusoo gadataa gaari iyo taleefon iphone wixii kaloo kuu soo haray waxaad ka dhigataa shoobin. ninkan dib ayuu ugu laabanaya shaqadiisa. habeenkii goor dambe ayuu imaanaya guriga xaaskiisa oo kasoo kacday ayaa arkayso waxayna arkaysaa ninkeeda oo laabtoob ku mashquulsan. waxay ku leedahay hadeer waa inaa iska joojisaa laabtoobkan aad seexataa. wuxuu ku leeyahay qandaraaskan waa in aan dhamaystiraa. waxay ku leedahay beri ayaad dhamaystiraysaa. wuxuu leeyahay asigan maya beri ma dhamaystiraa hadda ayaan dhamaystirayaa. subaxii dambe asigoo isku diyaarinaya shaqo oo inuu baxo oo rabo ay waxay ku leedahay in aan kula hadla ayaan rabaa. asigana wuxuu ku leeyahay hadda hadalka ma gaaro caawa ayaan wada hadlaynaa. ayadu waa xanaaqisa waxayna ku leedahay caawa ma wada hadlin hadeer ayaan rabaa in aan kula hadlo. markaas ayay ku leedahay adigu waa maxay labadan bir dabeecadda xun aad la soo baxday xitaa xaaskaada ma qiimeynaysid. habeenkiina goor dambe ayaad guriga kusoo laabanaysaa maxaa dhacay ayay ku leedahay. markaas ninkan ayaa ugu jawaabayo adiga ma hilmaantay markaan anigoo daalan shaqadan ka imaaday adigoo taleefon isticmaalis aan ku dhahay biyo ii keen aad ugu tiri biyo waxaan kuu keenaya ma jirto. mideeda kale waxaad igu tiri guriga wax qurxiy waa lacagta xabaalkayga waxay ku socdaan gaari. adigana in muddo ayaan waxaan ku weydiina in aad ii iibiso gaari ilaa haddeerna waxaad ii iibisay ma jirto. gabadhan aad ayay ugu qeylinaysaa ninkeeda waxaana ku leedahay waxaad ka shaqaysaa shaqo xun shaqadaas waxaan ku leeyahay kasoo. wuxuu ku leeyahay hadeer maxaan kuu sameeyaa. markaas ayuu ku leeyahay waayo wax alaal waxaad soo qoray ayuu ku leeyahay. isla markii gabadhan waxay soo saaraysaa warqad waxayna gacanta ka saaraysaa ninkeeda. waxay ku leedahay dalabkayga halkan ayuu ku qoran yahay. maalinkaasi wixii ka dambeeyey waxaan go-aan ku gaari lacag darteed in aan wax walba u qabto saad adiga u faraxdo aan wax walba aan u samaynaya. wuxuuna u sheegay lacagta amahda oo kasoo qaatay madaxa shirkadda in ay rabto dhiibas. wuxuuna leeyahay sidaa darteed waa in aan qabtaa shaqo adag. gabadha waxay ku xumaanaysaa midaas way soo cararaysaa waxayna ka qaadaysaa ninkeeda warqadii gacanta ku hayay. warqadda ayaan jeexjeexaysaa waxayna ku leedahay igaraal noq runtii qalad ayaan kaaga lama eena midaas in aan sameeyo. waxayna bilaabaysaa in ay qabato dhagaha waxaana leedahay igaraal noqo. asigoo ka aamusaya wuxuu sheegay ayuu waynayaa. marka dambe wuxuu ku leeyahay xaaskeyga taas way dhacdaa inta badan mar dambe ma raba in ay soo laabato midaasoo kale.